الصلاة والسلام. أمثلة تطبيقية يعني أو نبي السمية عليه الصلاة والسلام. حديث الصحيحة وحنبي تلمامية جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل نبي عليه الصلاة والسلام وجبريل لفردية أبو هريرة السوشية ملك سود دقي دبيتنا جبريل باوح النبي كويل وملك الجبريل ملك كان ما نزل منذ خلق سيدي إلهي بوا أبو هريرة الكوم سود دقين ساعدا قهر markii uu malagii yimina aan horeba dhulka u iimaanayni nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay baa ii kaa soo diray waxaana lay sheegay oo la yidhi waxaad weydiisaa su-aal rabbigaa wuxuu ku leeyahay nebi maxamedow ma waxaad rabtaa in lagaa dhigo melik nebiya mise waxaad rabtaa cabdi rasuula nebi maxamed laba shay baa la kala doorsiinaya in la isugu daro risaalada iyo meliknimada boqornimada sida ambiye horeba la isugu daray nabiyullaahi sulaymaan boqorna waa ahaa rasuulna waa ahaa nabiyullaahi daawuud boqorna waa ahaa rasuulna waa ahaa alcasri dahabi libani israa'iil misaasaad doonaysaa baa nebi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam mise waxaad rabtaa cabdun min cibaadi illaah inaad noqoto rasuulna ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tala weydiistay jibriil xaggiisu aagay jibriil wuxuu kula taliyey markaa nebiga tawaadica lirabbik isu dhuldhig rabbiga dabeetana nebigu wuxuu doortay inuu noqdo bal cabdan rasuula waxaan rabaa buu leeyahy inaan noqdo maxay addoon rasuula nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maamul iyo madaxnimo iyo xoolo iyo adduun iyo waxaasoo dhan oo la isugu kaadariyo risaale baa la yidhi ma rabtaa mise waxaad rabtaa inaad addoomaha ilaahay ka mida noqoto rasuulna ah nebigu wuxuu doortay calayhi salaatu wasalaam oo ah weliba taladii jibriil ku taliyey inuu noqdo addoomaha ilaahay ka mid ah oo rasuulna ah walidaalik nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha qof bini aadami wuxuu maroo dhan buu maray agoon buu noqday rajay buu noqday nimaan waxba haysan buu noqday taajir baa mushtar buu noqday laaji iyo nin dhulkiisii laga eriyo laga saaray buu noqday tolkii nimay cadaadiyaan buu noqday nin loo torjargareeyo wuxuu aaminsan yahay mabaadi'diisu noqday waa baahdo gaajooday ilaa uu caloosha laba dhagax ku xidhaysa axaadiista saxiixa ku sugan waa laga xoog batay intuu dagaalo galay ilaa god lagu riday oo koofiyadu madaxa ka gashay birtee uu sitay oo salaada fadhiga uu ku tukaday waa dagaalamay ilaa uu xoog batay oo uu qabsaday dhul badan iyo adduun tiro badan leh waa la isku dayay in la dilo in la sumeeyo wax kastoo bini aadam makri iyo kaydoo loo dhigo in la sixro everything bini aadam kaydoo loo samayn karaa lagu dayay nolosha qof bini aadami uu maroo dhan buu nebigu maray calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay tusaale inooga dhigayo haddaad madax noqoto iyo haddaad qaadi noqoto iyo haddaad miskiin noqoto iyo haddaad mujaahid noqoto iyo haddaad mid laga xoog badanye noqotoba saad u noolaan lahayd mid kastaba nebi maxamed tusaalu ka yihi walidaalik ayuu nebigu wuxuu doortay isagoo taladii raacaya jibriil inuu noqdo cabdan rasuula inaanu noqon melik rasuule cabdi rasuula inuu noqdo cabdi rasuula inuu noqdaa waxay keensatay sida xadiidka abu daawud warinaya sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamayo inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa intuu dhex fadhiisto aan laga garan jirin oo inta reer acraabigu intuu yimaado uu yidhaha ayukum muxamed nimanka reer baadiyaha iska hadal adag yihiin intay isu soo taagaan masaajidka inay yidhahdaan warkiinee maxamed ah waayo wax ka muuqdaa ma jiro xataa ay markii dambe saxaabadu yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow meel yar dekadii yar aanu kuu dhisno at least qofka su-aasha ku weydiinaya ama kuu imanaya raba inuu wax ku weydiiyo inuu ku garto inaad adigu tahay ilaahay rasuulkiisi iyo nebigiisi laakiin ninka caraabiga intuu soo galo inuu kala garan waayo keebaa muxameda calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiya ama keebaan ahayn xataa ansaar baa kala garan weyday isagii abibakar markay soo galeen kooda iyo ah rasuulka ile hore umay arag intooda badaniye markaasuu abibakar hadheeyey si ay u gartaan
inuu isagu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisii. walidalik bay culamaai taarikh waxay soo arooriyaan ama culamaai alxadiidba axaadiis tiro badan oo baabkan ku saabsan. ibnu qayim fii madaarij saalikiin wuxuu isdaba dhigayaa axaadiistii baabkaa ku soo aroortay. nabigu calayhi salaatu wasalaam caruurta yarar hadduu soo maro waa salaami jiray oo la hadli jiray. wuxuu ahaan jiray buu leeyahay gabadha addooni intay gacanta qabsato inay dhan ula baxdo uu raaco dantooda ilaa ay ka dhammaysanayso iyo waxay rabtay. wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu wax cuno 3 farood intuu wax ku cuno kadibna farihiisa inuu iska leefleefo. qof isweyneynaya aan ahayna cunadii yareyd ee kusoo hadhay gacantiisa inuu ka leefo nebigu calayhi salaatu wasalaam. bale caasha la yidhi markuu guriga yimaado muxuu qaban jiray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxay tidhi dee reerkuu u shaqayn jiray, kaana yakhdum ahlah, reerkiisuu caawin jiray o u shaqayn jiray. weligii wax la gaadhsiiyey isaga laftiisa kama aargoosanin. waxaa lagu tilmaamaa nebigu inuu kabihiisa tolan jiray oo maradiisa hunsan jiray. maradu markay ka dilaacdo irbad iyo dur intuu u qaato inuu tolan jiray. kabtu markay ka go-do intuu qaato qalabka lagu tolo inuu isagu tolanayay. neefkiisa adhigaa inuu isagu maali jiray. waa ilaahay rasuulkiisii ummaddana madaxweynaheedii ah intuu ridiisa soo qabsado ama laxdiisa inuu isagu neefkiisa adhigaa maali jiray. xoolaha uu raashinka u dhigi jiray, masaakiinta la fadhiisan jiray, agoon iyo maxaa la yidhaahdaa caruurba uu raaci jiray. ciddii ka soo horbaxda uu isagu salaanta ku bilaabi jiray saxaabadiisa. haddii loo yeedho la yidhaha waa lagu casumay walow kuraac waxa la yidhaahaa cumaacumtan yaro hoose laf xataa haddii loogu yeedho la yidhaaho foqoray saxaabadu ahaayeen markay nebiga leeyihin kaalay guriga ii raac. ma ahayn casuumadahan innaga waynu naqaano. adiga waxaa laga yaabaa haddii lagu yidhaahdo nin hadduu ku yidhaha inakeen waa ku casuumo guriga intuu geeyo beriskii yaraayo islaanta u karisay ku siiyo waxaad odhanaysa war wiil lugooy saxankaa maaha. maanta intuu isoo kaxeeyey ayuunbuu saxankii berisay guriga yaalla yidhi saxankan baynu cunaynaa. yacni casuumadu ma arkaysid. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa kuraac haddii laygu yeedho, cumaacum haddii laygu yeedho waa raaci jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam. yacni wax weyn lamay ahayn cunadan iyo waxaan la cunay iyo waxa kan. wuxuu ahaan jiray ka bukooda mid soo booqda, janaa'istiiyo meydka mid raaca. wuxuu fuuli jiray dameer, bale intuu isagu fuula buu cid kalena saari jiray. mucaad ibnu jabal xadiidku yaa mucaad markuu lahaa ilaahay xaqiisa ma kuu sheega. mucaad wuxuu leeyay dameer yaroo cufayr la yidhaahdaan anigii nebigu uma wada fuushanayn. waa dameer madaxweyne ummadeed oo ka waran dameer fuushan oo weliba lala saarayo aan keligii ahayn. waxaa lagu tilmaamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadiisa waxaa ka mid ah xadiidkii tirmidi ku soo arooray ee imaamuna albanina saxiixa ku tilmaamayo allahuma axyinii miskiina waamitnii miskiina waxshurnii fii zumrati almasaakiin. ilaahu qof mutawaadica, miskiinnimada faqri looma jeedo inuu ku ducaysanayo, yacni qof mutawaadic oo muuminiinta ka mid ah ilaahu iga dhig nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam. idan ayuha alikhwa, tawaaducu waa sifa baynu leenahay sifaadka ugu quruxda badan leh qofka mu'minka uu ku sifooba ah.